gudoomiyaha degmada Holwadaag Bashiir Maxamed Cabdi uu weheliyo agaasimaha beeraha iyo darjimooyinka gobolka Banaadir Luqmaan Cali Macow ayaa maanta dhirbeeris ku sameeyay beerta taalada isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. In ka badan 50 geed oo noocyada kala duwan ah ayaana lagu abuuray beerta isgoyska sayidka ee ka soo horjeeda xaruntii hore ee golaha shacabka oo dhawaan la doonayo in lagu sameeyo dayactir. Gudoomiyaha degmada Holwadaag iyo agaasimaha beeraha gobolka Banaadir ayaana sheegay in fulinayo amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Soomaaliya cagaaran lana doonayo in la qurxiyo dhammaan goobaha kala duwan ee beeraha ah ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo goobaha kale ee xarumaha dawladda ah. Waxaana geedahan kala duwan ee maanta lagu abuuray beerta isgoyska sayidka soo dhiibtay gabar Soomaaliyeed oo qurba joog ah oo soo wakiilatay Suleymaan Oscar oo ah muwaadin isna ka shaqeeya arrimaha cagaarinta iyo qurxinta goobaha dalxiiska. Geedahan ayaana kuwa kor u qaadaya bilicda goobaha dalxiiska iyo sidoo kale xarumaha dawladda. Waran gudoomiyaha degmada Holwadaag Bashiir Maxamed Cabdi ayaana faahfaahin ka bixiyay dhir abuuristan maanta ay ka sameeyeen beerta taalada isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. inta kaliya kuma ee ka shaqada aan wadnaaho sida dhabta ah waxaan isla garanay aniga agaasimaha beeraha iyo dhireynta gobolka Banaadir wadada naftirkeeda waa bilownaan u maleynaa shabqa ugu horeeya waa kana ayadana faanteeda inaan ku gaarsiino ilaa iridda madaxtooyo inaan dhireynta gaarsiino halkaan hadda dhameystirkeedii aan wadnaa maantay agaasimaha waaxda beeraha ee gobolka Banaadir iyo wakiilka gabadha sadaqaysta geedaha oo Oscar waxaan ka guddoonaa 50 geed shaqada noo dhiman ku sii dhameystirna insha Allah taala hadii Ilaahay idmo waxaan rabaa marka in halkaan baaq uga jeediyo cid kasta oo Soomaaliya dhireyntu waa wada anfacay cid alla cid marka aan awoodo ama sadaqaysan karta ama wadanidu ay ku dheehan tahay waa wadi doonaa ilaa iyo haddaan tiyaatarka gaarsiin karnay dhanka kale agaasimaha dhanka darjimooyinka iyo beeraha gobolka Banaadir Luqmaan Cali Macow iyo sidoo kale Suleymaan Oscar oo isna ka shaqeeya arrimaha dhir abuurista ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la qurxiyo xarumaha dawladda sidoo kale lagu diro goobaha kale dalxiiska. Agaasimaha darjimooyinka gobolka Banaadir ayaana sheegay in sidaan oo kale ay doonayaan in dhammaan goobaha kala duwan ee ku yaal magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ku sameeyaan dhir abuuris. Wuxuu sheegay in dhirtu ay wax badan deegaanka u tarayso. waxayna maanta waaxda beeraha soo gaarsiisay 50 geed waaxdi beerahana waxay ku wareejisay 50kaas geed si muwaadiniinta iyo dalxiisayaashaba looga faa'iideysto geeda la harsado iyo geed miroodyo oo dadka socotada ay uga faa'iideystaan si goobaha nasashada iyo dalxiiskaba looga helo miro la dheefsado iyo geeda la harsado. waxaan ku soo gaarsiinay gudoomiyaha degmada Holwadaag Bashiir Xoosh si oo degmada dadka degan iyo dadka socotada ahba ay uga faa'iideystaan insha Allah. gabadha muwaadinada Soomaaliyeed ee wadankeeda u diirnaxday inuu wadankeeda wadan cagaar u noqdo sida meesha ay ku nooshahay aabaheedna u hibeysay maaragtay waxay soo marshiisay hay'ad yiraahdo bisha cagaaran marka ayadana hay'adda ugu mahad celineynaa waxaan rajaynaynaa maaragtay inay aad ugu mahadsiin Hanad Karaamo warbaahinta qaranka Muqdisho.